wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqo raadis qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a muuqaalo laga soo duubay ciidanka tigreega oo gam ka dhigay canfartii oo cagta mariyey shacabkii canfarta jahwareer afarta dhinac meel ay u kala cararaan garanla iyo TPLF oo la sheegay inay afar deegaan oo waaweyn ka qabsatay canfarta haddaba waa maxay sababta ay ciidanka canfartu u difaaci waayeen shacabkooda ay TPLF uga difaaci waayeen xagee ayay samareen ciidankii canfarta ee abi sida weyn u soo hubeeyay qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada wahagaag xogtii ugu dambeysay ee naga soo gaadhay dhinaca canfarta iyo markaa tigreega ayaa haatan waxaa la sheegayaa in jabhadda TPLF dagaalo xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka waday dhinaca moogtahay canfarta waxa ay haatan qabsatay afar deegaan oo waaweyn oo ku yaala deegaanka Soonfor deegaanada ay haatan qabsatay markaa TPLF ayaa waxaa ka mid ah Yaloworida, Gulina, Awaworida iyo Uwaworida deegaanada waaweyn oo dhan ayaa la sheegay haatan inay cagta mariyeen oo markaa shicibkii canfarta aanay haatan u kala eegaynin qof yar iyo qof weyn iyo waayeel toona oo markaa ay rasaas ooda kaga qaadeen iyo madaafiic ay ku harqiyeen muuqaalo laga soo duubay haddaba deegaanadaasi ay dagaaladu ka socdaan ayaa waxaa muujinayaan shacabkii canfarta oo dhinaca u yaacaan garalla iska hor iyo daba wareegaya oo asqaysan oo marka uuro iyo qaac u qariyay markaasi ay la dhacayeen rasaasta TPLF la dhacaysa awgeed ayaa la yiri waa sida aan warka ku helayno ma xaqiijin karna anagu laakiinse waa sida ay ku soo tabinayaan dadkii goobjooga ka ahaa markaa ee deegaanka canfarta joogay waqtiga uu dagaalku haatan u socdo haddaba waxaa la isweydiin karaa waxaan haatan la sheegayaa horta ilaa dhowr boqol oo kun oo qof haatan inay ku barakaceen dad badan oo shacabana markaasi lagu laayay dagaaladan markaa ay TPLF ku soo qaaday dhinaca canfarta haddaba waxaa la isweydiin karaa ciidamadii canfarta ee markaasi uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kuba faanayay inay yihiin geesiyaasha difaacaya Ethiopia ee hubka ugu badan la siiyay ee moogtahay awood xooggan loo yeelay aaway yacni maxay u difaaci waayeen TPLF soo weerartay ee deegaanada ka qabsatay ee shacabkoogii laysay xageebay mareeba la isweydiin karaa markaasi ciidankii moogtay dowladda moogtay deegaanka canfarta ee sida weyn loo hubeeyay taasi waxaa tan markaasi la ogaaday canfarta hubkeedii iyo awoodeedii ugu xooganaaba intay ka soo qaaday furimihii tigreega ayaa haatan dhowrkii bilood ugu dambeeyay waxa ay ku soo guraysay baa la yidhi deegaanka ay la leedahay xadka ay Soomaalida la leedahay oo waa kuwii moogtay qabsaday candhuufo iyo dan la helay iyo deetana deegaano kalena waan qabsanaa waa ku lahaa ilaa waa ku yiri erar bal soo qabsanayna ilaa xadka ay wadaagaan markaas Ethiopia Djibouti qabsanayna ilaa iyo dhinaca kale xadka jijiga iyo moogtay dhulkaas ay soo qabsanayna ilaa xadka Soomaaliya ila leedahay Ethiopia ayaan gaarayna yacni waa ku isaa ku faanayay waxaynu ka sameynayna maahay waa barahooga bulshada ayay moogta soo dhigayeenba faankooga iyo markaasi hubkii badnaa ay haystaan iyagoo oo kaarayaashay taangiyay kulli wax allaali hubka cuslaay oo dhan wata waa ku deegaanka Soomaalida soo galiyay haddaba TPLF markii arrinkaa ka war heshay talaabo adag ay iyaduna ka soo qaaday dhinaceeda dagaal waxaan haatan weeraro xoogan ay ku soo qaaday dhammaan waxay qabsatay horta deegaanada ku yaala xadka Tigreega iyo markaasi canfarta oo moogtay abaala iyo dhulkaasi ayay soo qabsatay haatan Soonfor kan ayay u soo gudubtayba afarta magaalo waaweyn ee deegaan ee waaweyn magaalooyin ma ka waaweyn boo deegaano waaweyn ee Yaloworida, Gulina, Awaworida, Uwaworida afartaas la sheegay haatan inay cagta marisay oo markaa ay qabsadeen ilaa iyo haatan deegaankii canfartu markaa ciidankii inay qaadaan oo ay ka qaadaan dhinaca Soomaalida oo ay dhinaca Tigreega geeyaan ayay moogtay go'aan ka gaari kari lahayd waxaana isweydiinayaan baa lagu leeyahay oo leeyihiin haddii aanu ka dhaqaaqno deegaanada aanu Soomaalida ka qabsanay candhuufo iyo dhinaca moogtay aan qabsanay Soomaalida soo galaysa ay ku doodayaan saa darteed waxay go'aansadeen inay halkan joogaan shacabkooda iyo deegaanadoodin halka ay markaasi Tigreegu ku laynayaan TPLF cadaween ayay u qabtay baa la yidhi oo moogtay waqtigii hore cidii jabisay ee sutida u qabatay deegaanadii lagu jabiyay canfartay hayd
marka haatan bay ka aarsanayaan bay wararka qaar sheegayaan inkasta oo afhayeenka TPLF Getachew Reda oo hadlayay markaa xalay toole ayaa sheegay in maogtahay ugu baaqay baaq dheer u soo jeediyo Soomaalida iyo Axmaarada iyo Canfarta shacabka uu kula hadlayay ayuu yidhi Canfarta waxaan ugu baaqaynaa markaa inaan ciidan soo dirin waan ognahay buu yidhi markaa inaan jirin markaa Canfari sabab ay ugu dhimato dagaalka haatan kuma jiraan buu leeyahay markaa Canfarta dhowr jeerna waa liishay barnaamijyada hore falaqaynta siyaasadda caalamka ayaan kaga waranay weli moogtahay Canfarta way ka gaabinaysaa dagaalkaasi TPLF waxaan leeyihiin anagu xadkan difaacana iyagoo markaa uga dhigay ra'iisul wasaare Abiy leeyri in oo leh anagu mugdi jidka istiraatiijiga ee Djibouti ka imanaya mil ayaan ilaalinayna laakiin se ujeedada ugu weyn ay tahay walaal candhuufo iyo dhulkaasi ayaa qabsadeen in marka hadii ay ka baxaan la soo galayo Soomaalida ay ka baqanayaan waxaan iyagu qorsheysanayaan baahata balwili Canfartu in hore u soo gasho dhinaca Soomaalida oo deegaano kale oo hor leh ay qabsadaan sida aynu ognahay sanadkii hore waqtiga uu socday dagaalka Tigreegu ee ciidanka Soomaalida la qaaday ay ka dagaalamayeen wallo waa kuwa inta u soo weydaarteen moogtahay Canfartu ay qabsadeen Garbaciisa dhowr boqol oo qof waa kuwii ku dilay sideen ognahay xasuuqi Garbaciisa marka imika waxa laga cabsi qabaa sidii kale inay weerar kale ay ka geystaan Soomaalida ayaa la yidhi wixii kale xoga ay soo gaara barnaamijyada dambe ku soo qaadanayna tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo